wax doorsoomay dawarinayaan oo tolkay duuka ma koraan markaan ku leeyahay faaniskeygaan ka wada waxaan aqaanaa maskaxda qafilan iyo dad dabaqalooca wax doorsoomay dawarinayaan oo tolkay duuka ma koraan Assalamu alaikum. Welcome to Islam Blossom. iska siib kabaho subscribe ta dhaksi. yes assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkaad nagala socotaan waa IPS oo ah iskuulka iyo isha afka Soomaaliga xigmadda iyo caweyska caafimaadka qaba ama isfaham Blossom waxaana maantay halkan idinka salaamaya anigoo ah Xabiib Shakeeti qodar gafuurna meesha kama maqno codkiisa waa dhacsanayaa halka kaamirada igu daa rabana inaan idin la wadaago barnaamij aad iyo aad u xiiso badan run ahaantii awal korkaan marmaraynay xagga farxadda iyo xagga qosolka iyo xagga maaweelada ayaan waqti aad u badan gelinaynay laakiin hadda markaan arkay dayaca iyo waxyaabaha badan oo bulshada dhexdooda ka jira أنا إذن فانسيني حبيبكو قيلضا يسقبقبسك يا سياسة بوغيدو قدق علمايا واصص waxaaban door bidayba in si directia aan idin la hadlo oo indirectigu macno weynba waa samayn weyday وهذا وانين كرميد حلقيادو يسهلقامي هروشنا واكو قرب تاغن يحي بصوحو sababtoo ah walaalayaal qaali horta inagu dad walaalaa baan nahay dad Soomaaliya nahay inta ila luuqada waa bulshada aan adduunka ugu jeclahay entire world niyo wadigana xishood baa ku dilaya ugu dar kaadiday ku qubaysanayaana anigu raalli kama ahi u sheeg niyo adaaba isxilqaamaye sidee u xishoonaysaa keenii hore waxay oran jireen raggu saddex buu isdheer yahay saddexdaasna waxa weeye garashada waxa soo socda oo ilaahayuunba og waxa soo socda laakiin inaguba haddaan analyze garayno ama aan dib u eegis ku samayno fahmi kartaan wuxuu ka hadlayay wuxuu idin yiri haddaad reehebel iska dayn weydaan gumaysi baad u noqonaysaan xorriyadana waa u dhamaatay waa aynu qiyaasi karnaa ama awood baan u leenahay inaan soo dhadhaweyno waxyaabaha caadiga waxyaabaha sida kadiska ku dhaca ma qiyaasi karna laakiin waxyaabaha caadiga nolosheena sida aan u wadana anagu hadafkeena goolkeena dadaalkeena wax kasta aan fiirino waxbaan qiyaasi karnaa marka aan aragno marka raggu saddex buu isdheer yahayo garashada waxa soo socda oo ilaahay awoodda inoo siiyay inaan garan karno oo besan ka hadlaya iyo wax ka qabashada waxa taagan oo dee hadda xilliga marka la joogo waa waxa kaliya oo aan haysano waqtiga hadda aan joogno now waa waxa kaliya oo aan haysano ama aan awood u leenahay inaan wax ka qabano laga bilaabo haddana waxaan idinku boorinayaa maskaxda negative-ka ah iyo burburinta kaliya inaan ka biskono insha Allah markaas guushu soo galaysaa iyo ka samridda waxa tagay oo qofka bini aadanka ah inta uu nool yahay wax kasta ayaa ku dhici kara wax kastaana ku imaan kara laakiin ka samriddu waa wax aad iyo aad u muhiima marka waxa weeye qofka aana samrino ma samraha ah kaasimayna meel wax geynaya oo qabtaan ku cadee Shakeeti naftiisa unbuu dhibaato ku abuuraa laakiin qofka samra wuxuu awood u leeyahay wixii ka lumay oo uu ku walwalsanaa wax ka qiimo badan inuu helo markaa hanta gacanta ku dhigo rageedii kala fiican reerkaagaan rabin oo Soomaali baan u riyaaqina run maxaad ugu yeertay waa inaan isla qirnaataa war adigu saad cunaha ugu dhageysaad fiidiyowgii naga dishay balna si kaamarada annaga iska duubayne hey harwesh weligaa baadan wax khayr la wadin isfahan Blossom